دمر كالليدي باكرن وكل لازمتي هدبا النبي نينك حقره وكافر باجماع الامه هل كان انا ورسمتكو قالوا له انه سونيدي سو سدا ما هي كفرغا انه كتوبد كين هدنا وا موقتا ما وا عداي او وحو يري حديثك لفظيسا iyo matnigiisa iyo macnihiisa intuba waan اعترافsanahay waxaan kaloo اعترافsanahay sidoo nabigu ku fasiray oo ah ناقصات عقل ودين النبي صدق كفسر أي أهيد مخراتيغا إيا صلاة لابد وسيدة مقاتيبون تانا وحكبت بادي حقير الدين النبي عليه الصلاة والسلام علماء أهيد تمرك حقيران ونبي تمرك حقيرين هل كدران إرنينا اللازم كأهام مآل كهانا أما هذا تظاهر برده وكبت بادي طيب كفر صدحات يعني وكتبت كان هذا كسوا كعدي عنده كفر صدحات هذا الكيس الدم وكبت بعد أما وكتبت كان وحوي هذا الكي قدام بيا ضمركو يرجوا واسميهين وحي ضمركو كان نقصان سين رجنا متشرنا عنده وكبت بعد يا وحكبت بعد يا هضوع اعترافي تفسيرك والنبي وحديثك كبحيي ماشي محاكب حي inay sameeyeen meesha waa ka baxday inkiraadu uu dafiray uu yiri ma jirto wax nuqsaan ana nuqsaantiba hadda sugahaya ila nabiga sugaye tafsiirkiisana waan ogolahay waana qaatay buuri inaad fahanteen baan u malaynaya saddexda kufri si cad oo ku dhiiran karo hadaan ahay aw xasaan ayaa aniga ee muuqato ana cidna ma taqliidinayo wadaadaha Allahna waxba igama jiro dambigayaan qaadaa wanaagayana ana iskale ma taamisama wixii aan wadaadka ku haystay si aan loo eedaynin baan u eeday waa ogtihiin wadaadaha la mid ma ahay si aan loo eedayn ina warsame iyo meel aan lala marin baan la maray marka hadda aan ka hadlay qadiyadiisana waa inaan furfuro silsilooyinkii iyo jalfisti iyo minooyinkan daadiye waa inaan furfuro qad qoslaysa marwalaydaya khayr way waa wixii furfurmi kara hadda wixii furfurmi kara ama la qarxin karo baynu furfuraynaa wixii furfur diida sidiisan oga tagaynaa maxay noo soo haray saddex kufri baa soo hadhay saddex kufri maxay ahaayeen tacdiimu kaafirin ko iyo nidaamka islaamiga ah ee siyaasiga in la bakhsiyo midka reer galbeedka kufriga la bombooniyo on siyaaqa guud ka keenay labo kufriga saddexaad muxuu ahaa la yufliha qawmun wallow amrahum imra'a haweenayda hadii madaxweyne laga dhigo burbur iyo balaaya ka dhalato shariicadu tir asaguna ma uu ka yiri saddexda kufri baa hadhay saddexda kufri si cad oo ayaga ku aadan ila dambiga markaad gasho waxa wanaagsan in la magacaabo dilkii hebel aan dilay waan ka toobad keenay lacagta aan ka dhacay Abdullaahi ilaahay baan uga toobad keenay kitaabka oo hebel aan ka xaday waa u soo celiyay waa ka toobad dambi walba iskii in loo cayima wanaagsan markaan ku dhiirayna wuu ka toobad keenay ereyga aan oranay hadii aan u raadina makhaarij fiqi ama sharci ah waxaan leenahay saddexda dambi si cad oo daahir uga toobad keenay saddex kufri hore saddexan dambana hadal wuxuu leeyimi uu yiri wax walbo khalad ah ama dambi ah oo kalimadeyda ku jiray ilaahay baan uga toobadkan ooga noqday saddexda kufri ee dambe waxay guda galayaan toobada caamka ah saddexda kufri ee inoo hadhay lixda ka soo hadhay ee ku jirtay hadalkiisa